إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب وأصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني شن تبنات وكمل دروستي أن كشرح إن منهجك دعوي أما عقدي جماعة الإسلام بالكتاب والسنة. waxaan ku jirnay baabkii ku saabsanaa jihaadka iyo anwaacdiisa iyo ahkaamtiisa wax kamida insha Allah ayadii ayaan sii wadaynaa. sala socotaan jihaadka ahkaamtiisu iyo xukunkiisu waa kala gedisan yihiin. marna wuxuu noqdaa jihaad dafci ayuu noqdaa, marna wuxuu noqdaa jihaad la yiraahdo talabi ayuu noqdaa. kan dafciga waa marka waxa weeyaan magaalooyinka la soo galo oo muslimiintu dhulkooda la soo galo oo dhibkii ayaga uu soo gaarayo weeye oo wadankii la soo galo. kan dalabiga waxa weeye in gaalada wadamadooda loogu tago oo lagu weeraro oo halkaas maaragtay cadaadiskooda iyo dhibkooda lagu celinayo weeye oo fitnadooda muslimiinta laga qaadayo. marka culimadu waxay yiraahdaan jihaadka dalabiga ahi fardu kifaaya buu noqonayaa. midka dafciga ahna dadkaas weerarku uu soo qabsaday ama madaxa maaragtay weerarku uu ku yimid ayaa laga rabaa inay iska xishaan iyo cidii kale oo looga maarmi waayo. taas waa xaggaas ahkaamta waana iska macruuf ayaan filahayaa. asaga yani xagga fardu caynka iyo fardu kifaayiga kaliya kuma ekeysna jihaadku. marka qaarkood hadii maaragtay sidii loo baahna uu noqon waayo ama uu maslaxadii keenaynin waa laga joogahayaa oo xaraan ayuu noqon hayaayo waaba laga istaagahayaaba. maxaa yeelay sida aan sheegnay ujeedooyin baa lagu talagalay. marka hadii ujeedadii uu xaqiijinaynin mamnuuc buu noqonayaa. mesela markii la joogo Makka oo kale inuu mamnuuc ahaa waan sheegnay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku yiri quraanka kufu aydiyakum gacmihiina cishada la yiri ayadoo qaar la dilahayo qaar maar la dhibaataynayo dacwadii ay ku jirtay xiriiri hadana in la dagaalamo mamnuuc ayay ahayd. sidoo kale culimadu waxay maaragtay ay haleeshiyaan hadii maxaanka muslimiintu ay dagaalamayaan macraka oo kale inta la tago macrakadii ay socon weyday oo muslimiintu aan culays fara badan oo ku yimid oo inay meesha sii joogaan oo sii dagaalamaan macnaheedu uu yahay inay ku halaagsamayaan markaas kale inay meesha ka soo baxaan ayaaba waajib ah baa leeyahay. sida uu leeyahay al-Imam Izzuddin ibn Abd Salam wuxuu leeyahay idha lam tahsil an-nikaya wajaba al-inhizam. كتاب يقال قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس ومن شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. وحولي المشي اللي سكتاقنا هذا ومد ماشي كبا بعضه وحا مصلحاكم مجرتوا إليه هاي وإن ماشي لقطها وأرنك اللباتشية. صلى الله عليه وسلم بريقي وصحابة أضري دولانكي مؤتة مركي أي أركان أركو كعلوسي هاي خالد بن وليد وصي سواء صحابي وكسو التقي ماشا
taasoo kale marka inay soo carareen macnaheedu ma ahayne waxa weeyaan meesha in hadda lagu baaba'o ciidankii muslimiinta difaaci lahaa ama anfici lahaa mustaqbalka in halkaas lagu burburiyo wax faa'iido ma laha marka fursad kale iyo chance kale ayaa la heli karaa Nabi sallallahu alayhi wasallam waa sagay Taif hareereeyay oo aad muddo dheer ku qaadatay markuu arkay inaysan faa'iido lahayn oo meesha waqtigu kaga lumahayo ayuu go'aansaday inuu maxaan ku rahaa jeeshi ciidankiisa uu la noqdo oo Madiina iskaga noqdaan ayadoo meeshii gaalada degan tahay oo magaaladu ay joogaan markii taag loo waayay ama in la sii joogaa aysan faa'iido lahayn la arkay ayaa la iskaga tagayaa marka jihaadku ahkaamtaas buu noqonayaa maaragtay qaar waxay leeyihiin haddii ay siraahan waxba gaarsiin kartaan oo maaragtay noocan ma markaas oo kale thubuudka ama thabaatku iyo joogitaanku mustahab u ahaan waajib noqon maayo marka waxa weeyaan ahkaamta xalaasha iyo xaaraanta iyo maaragtay ila aakhirihi ayaa jihaadka ku imaanaysa oo mar waajib uu noqonayaa marna xaaraan ayuu noqonayaa marka qaar kood kale ayuu noqonayaa ila aakhirihi taasoo markasta ku xiran in maslaxada uu xaqiijinayo iyo aragtida laga haysto iyo qiyaasta lagu qiyaasi karo in wax lagu gaari karo iyo in kale maxay iska samee kaliya ma aha ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay asagoo ka hadlay jihaadka dalabka midalan wuxuu leeyahay sida culimadu ay yiraahaan sanadkii hal mar oo kale in maxaan ku la aado gaalada wadankooda oo maxaan ku raa walays la saaro ayaa waajib uu leeyahay illa min udrin inuu udur dar jira ma ahane oo la iska dhaafayo udurkaas muxuu yahay مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو قوة إن مثل المسلمين ضعف كجره حق الترضى أما حق أود وحول مقاس كله وعذار ولا باشنيا أو يكون ينتظر المدد يستعين به أما إنك مسؤول كايح السجيا مارت مدد يدل صوع إذا ما يأكل سجها مركز كله وباشنيا أو يكون الطريق إليهم فيها مانع أما وضد الأمر لها أيها وحكت جيران ومانع صح كلا هذا وحنا أهاني هذا مثلا بيا الآن باكرتا بعد الآن باكرتا ماشي لما صحون كرو ولا سكلا فيها أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام أما إنك مسؤول كوا مسلمين تحقي هاي يعني عدو قاس إن لا سكلا فيه كفي عين هاي ضد حوار إسلام كا ما ركتي كاهسته فكرة في عن أو هدي أنا لا دجالمين إن سو إسلامان ayaa rajo laga leeyahay markaas ninka dadka noocaas oo kala ah oo in la iska daayahay anfacayso in la dagaalamaana ay si fogeynayso wuxuu leeyahay sheekhu wala iska dhaafi karaa aw ya'lam min aduwihi husn ar-ra'yi fi al-islam fayatma'a fi islamihim in akhara qitalahum wa nahwa dhalika yuhi lamida mimma yara al-maslahata ma'ahu fi tark al-qital marka in dagaalku iska daayo haduu arka maslaxad buu leeyahay iska deynaya waan lagu raacaya maxay ujeedooyin ayaa dagaalka loola jeedaaye iska samee kaliyo maaha marka hadii la leeyahayba qolada gaalada ah in la iska daayo ku fiican yihiin saasay nagu fahmayaan saasana isku fahmaynaa saasay diinta ku qaadanayaan ayadaas ayaa la sameeynaya ابن حبيب المالكي وحليهي سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته هذه إمامك وما ركت كنهي مسلمين تديالك وكنهي لمصلحة المصلحة وأركهي وحا حارانه إلا خلافه أي حارانه إلا أن يدهمهم العدو إنه عدو هذا صوير رمى أهنه marka waxa kaaga cad mas'aladu waa mas'ala ijtihaadi aweeyaan maslaxada ayaa la qorsheynaya maslaxada la go'aaminaya markaas wixii la garto ama dagaal ha noqoto ama heshiis ha noqoto ayaa la sameeynaya marka hadii la yiraahdo la sameeyno la iska dhaafo hadii qofkii khilaafa dadka mas'uuliyiinta ah xaraam ku dhacaya waana shay iska muuqda weey mid kale waxa loo baahan yahay inaan fahamsanaano oo xooga aan dul istaagayna jihaadku guud ahaan hada wujubkiisa laga hadli maayo wax laga hadlay waxa weeye wujubkiisa fi xaala muayana
وفي بلد معين وفي أشخاص معينين وجوب كيس ميل قار إنه واجب كي هي أيضا أحكام قار بالله فيرنا محايا لجود دينتو هي أحكام مع الإسلام هو كلا صار يسار وحلو يقانه الوجوب المطلق والوجوب المعين وكلا صار يسار ومثلا صلاة واجب جودهان لكن كواجب معها إنك تديك قبطة أو حرام بين تكتو تقرميسي صومك واجب لكنك مسافر كاهي واسكدها فكره وهكذا marka wujuubka caamka ah iyo wujuubka khaaska ah waa kala laba weeyaan marka la leeyahay jihadkan waajib ma aha meeshan ama sax ma aha la leeyahay in wujuubkii asliga ah la diiday ma ahane waxa la diiday laga hadlayaa waa wujuubka muayyanka ah oo loo fiirinayo in shuruudiisi la helo mawaanicdiisina maaragtay la waayo ayaa laga hadlayaa culimaduna sala socota way kala saaraan waxa loo yaqaano aslul ibada wa sifatul ibada ibada asalkeeda iyo ibadada kayfiyadeeda way kala saaraan marka aslul ibada ayadoo mashruuc yahay ba kayfiyadeeda iyo sifaadkeeda iyo mulaabasaadkeeda ba ta'fiir ku yeelanaya marka hadii la yiraahdo meeshan jihadkan sax ma aha in la yiraahdo jihadkii baa la diiday jihadkii ba inkireen arrinkaas waxa weeyaan maartay waa meel ka dhac weeye waxay la mid tahay mesela bariga la oran jiray dadka suufiyada ama khuraafaadka aaminsan war waxaanu sax ma aha war waxaan bidca weey hadii la yiraahdo ay ku oran jireen nabi sallallahu alayhi wasallam ayuu diidan yahay salliga ayuu diidan yahay iyo waxa la midka hadii aad tiraahid war awliyada ha baryin awliyadu waa adoon ilaahay in lagu yiraa awliyadu nicab yahay waxa noocaas oo kala bay u eg tahay marka dadka maartay ahlu cilmiga ama ahlu saxwada ay inay ku hadlaan hadaladii dadka khuraafiyiinta munaasab ma aha mid kale waxa weeye jihadka sala socotaan shuruudo ayuu leeyahay shuruudahaasuna inuu fududaado oo lagu najaxo ayay kaalmo ka qaadanayaan oo maartay soo dhaweynayaan qofka shakhsi ahaantiisa sameynaya awoodiisa baa la fiirinaya maskaxdiisa oo waatan la yiraahaa 7 shardi islaam iyo buluuq iyo aql iyo xurriya iyo dhukuriya iyo maaragtay assalaamatu min ad-darar qof inuu san jir ahaan uusan curiyaan ahayn indhalaayn iyo wujuud nafaqa 7 shardi weeyaa marka 7dan kaliya ma ahane laakiin fardi ahaanta loo jeedaa wa ilaa qofka 7dan leh haddii jihadku fard kifaaya yahay waalidkiisa idinkiisa loo baahan yahay waxa loo baahnaanayaa qofka in aan deyn lagu lahayn ama qofkii kula hadeynka inuu maartay fasaxo ayaa loo baahnaanayaa وهكذا marka shuruudo kala jiree shuruudahan waa shuruudaha caadiga weeye waxaan u daliila markii ma kala joogay hada saxaabada muslimiin bay ahaayeen dad cuqala bay ahaayeen dad xurriya bay ahaayeen dad maaragtay niman bay ahaayeen macnaha weeyaan 7dan sabab ama 7dan shardi waa lahaayeen haddana inay dagaalamaan looma ogolayn maxaa yeelay duruuftii kale ayaan salaxnayn oo aan isku aadanayn marka cilada dagaalkana oo la dagaalamaya gaalada in la fahmo waa loo baahan yahay ciladu gaalnimada aan kuma xirna ciladu waxa weeye waa dhibka iyo dararka iyo culayska ay ku hayaan muslimiinta ayaa laga jawaabayaa ninkan waa gaal maadaama uu gaal yahay iskala dagaalamaya saas yani ciladaasu waa cilla marjuuxa sida raajixa ah oo waliba shaafici oo kale qabo waxa weeyaan cilada dagaalku waxa weeyaan waa dararka iyo culayska gaaladu ay muslimiinta ku haynayaan kaas laga jawaabayaa laga difaacayaa gaalnimadiisu cillo ma aha maxaa yeelay asagoo gaal ah baa jizya laga qaadayo oo iska deynaya oo iska noolaanaya oo maxaa loo dili waayay baa imaanaysa markaas oo kale marka midda ayada marka la fahmo waxa weeye marka sababta dagaalka keenaysaa inaysan noqon gaalo kaliya waa gaalo kaliya kaafi maahane waxa weeye maxaa ku xiga maxaa la samaynayaa maaragtay sheeg dararka jira intee buu leeg yahay dararkaas maxaa looga jawaabayaa runtii waana meelaha culimadu ay fiiriyeen markay ka hadlayaan arimaha Soomaaliya oo kale ay qiyaasahayaan waxa looga bixi karo iyo waxa daawada ahaan kara ay ka hadlayaan maxaa yeelay waxa shayga sababtii keenaysay hadii ay timaadaba kaligeed kaafi maahane waxa la fiirinayaa shuruudii kale ma la helayaa mawaanicdiisa ma maqan tahay oo mesela anay maxaan ku raahaa wadankii iyo dalkii iyo maaragtay cadow baa yimid cadowgii dadkii wixii buu maaragtay dib u geysanayaa
dhankaasi sabab waa ka ahaan kartaa keeni karta dagaalka laakiin shuruudii kale baa la fiirinayaa maxaa awood lahayaa ayaa la fiirinayaa maxaa laga gaarahayaa ayaa la fiirinayaa waxaa la fiirinaya waxyaalo diidahaya miyaa jira oo mawaanic ah marka waa qaacida weeyo qaacida waxay leedahay yatarattab alxukmu cala asabab idaa tawafarat ashuruud wantafat almawaanic haddii sababtii la helo xukunkiina waa la helayaa laakiin bisharti waa in shuruudii la helo mawaanicdii la waayo مثلا zakada oo kale ka soo qaado zakada waxa waajibinaya waa sanadkii iyo dhamaada مثلا nisaabkii oo kale oo la helo laakiin maana ma iman kara hadii qofka deyn lagu leeyahay xoolihiisa dhan ka badan deyntiina loo dul fadhiyo qofkaas deyntu bixin hayaaye zaka bixin uu maayo garatay waxa kada marka waxa weeyaan waxa waajib noqon haya مثلا marka la dagaalamayo waxa la dagaalamayaa laftooda shuruud bay leeyihiin nooc ay yihiin maarta gaalamiya gaala maarta aan asli amiya murtadiin miya bugaat miya khawarij miya wax kasta ahkaam ay leeyihiin lagu tala galayo marka laakiin shuruudan todobada ay oo dadka qaar kood moodahayaan hadii ayada la helo in wax kasta la helay saasi sax maaha مثلا nabi sallallahu alayhi wasallam markii aan Hudaybiya uu aaday oo maaragtay loo diiday inuu umraysto oo xoogaa arankii adkaaday Uthman bin Affan radiyallahu anhu waatu maka uu aaday oo maaragtay inuu gaarsiiyo Quraysh fartiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu san dagaal u imaanin waatii xoogaa la waayay uu soo daahay waatii loo maleeyay in meesha dagaal ka dhici doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay meesha dagaal waa ka ridi lahayne waxaan u baajinay dad muslimiin ah joogo idin garanaynin oo maka degano inaad dishaan baa laga yaabaa oo dhibkiinu u gaaro marka meesha asbaabtii waa taala oo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii muslimiina ayaa beedka Ilaahay loo diidayaa oo maxaan ku waraa gaalo ayaa meesha iska haysata oo dadkii dhibaysa oo kibirtay oo qooqday marka asbaabtii waa jirtaa laakiin maanic baa jira maanicaas waxa weeye hadii dagaalkii la galo dib kala imaanayo dad muslimiin oo masaakiin oo abriya ah ayaa in wax la gaarsiiyo laga yaabaa dadkaas ma badnayn baa la yiraahaa qaar sagaal bay yiraahaan qaar waa ka badiyaan culimada laakiin dagaalkii oo dhan oo Qurayshta lagu soo afjari lahaa oo maka lagu furan lahaa mesela ama dibkooda lagu baabiin lahaa waxa loo baajiyay dibka dadkaas soo gaaraya marka waa maanic marka walidaalika waxa iska sameey kaliya ma waxa weeye waxa ka dhalanaya ayaa la fiirinayaa mesela dagaal ba sameynaysa dadka muslimiinta dhexdooda ku dagaalamaysa inta ka dhimanaysa muslimiinta ayaa ka badanaysa inta ka dhimanaysa gaalo waa la fiirinayaa muctabar weey taasiir bay leedahay maanic bay ahaan kartaa marka maanic wuxuu ahaan karaa war waxaan hadii la bilaabo annaga ku baaba'aynayna uga kaadiya maanic weeye muctabar ah waxa maanica hadii waxaan la wado waan ku halaagsamaynaa naga daaya waxa kada marka in wixii loo fahmo in ay yani maslaxadii lagu gaarahayo iyo in lagu gaaraynin ayaa laga maarmaan ah wixii waxba laga helay hal la iska wado macnaheedu sax ma aha waa in la fiiriyaa maxaa isku aadan marka diintu hal meel ma fiirisee mas'alada jawaanibta oo dhan ayaa laga eegayaa oo maaragtay laga fiirinaya tan kale waxa weey loo baahan yahay in la fahmo جهادكو وعبادة أمضيد وعبادة جماعية وي عبادة فردي عبادة كوحيد معها محايا لما كان لصمين هيانا ومد أود ديدا رأي جيدا تاغير ديدا بالو باهية وحكسو نقونا يودب أهنا ومد لفتي تابانيسا مركا واحد فردي وتحملي كره ويكون نجحي كره معها دبكا كسو نقونا يا دب فردي كوي كان يا معها marka maadaama wixii baahida horana aan umada laga maarmin hadda wax ka soo noqonaya umada ay taabanayaan shaqadan umada iska leh walidaalika waxaan ma aragtay anagu aan soo jeedinaynaa jamaacadka islaamiga inay fahmaan arinkaas dadka muslimiinta go'aanka iyo silmiga iyo harbiga iyo waxa ayaga taabanaya in ayaga laga tashado xaq bay u leeyihiin wixii ma aragtay maxaan ku raahaa dad sufaha maaha dad maaragtay غير مسؤولين maaha dad maaragtay maxaan ku raa ay taamtay caruurta ayaa wax loo maamulaayo umadu ay taam ma caruurna ma ahane dad uqala waaleed culimo waaleed wax kasta waaleedahay waxa umadu ku soo noqon haya umada ayaa taladeeda lagu aadaa oo ilaa dib ayaa ka imaanaya
markay dhibku yimaadana arrinku wuu halaabaya marka waa cibaada jamaaciya weeye qudrada sala socotaan dhammaan cibaadaadku takliifkooda qudra ayuu ku xiran yahay qudraduna marka macnaheedu waxa weeye in wixii la sameyn karo lagu najixi karo laga guulgaari karo weeye macnaheedu awood hadda aan ku sameeyo kaliya ayaan leeyahay lagama fiirshee maxaa ka dhalan kara مثلا علماء waxay yiraahdaan xajka iyo jihaadka meel farban iska shabahan مثلا qofka xaajiga inuu xajka tagi karo walow naftaba hawaaye lama oranin waa inuu ku aadaa waa inuu zaad haystaa waa inuu raaxila haystaa bimaana safar naftiisa ay baaqi noqonayso noloshiisu baaqi noqonayso kuwa ka tagay waxay ku noolaadaan uu haysto ayaa la rabaa laakiin safar lagu baabaahayo oo inuu lugayo lagu waajibanayo oo markuu xajka tago oo dilif oran dhiman hayo looma jidaynin xajku waa nooc maartay jihaadku waa noocaas oo kale macnihiisu maaha waxaan iska samee walow hal baabee macnaheedu ma aha waxa loo baahan yahay awood wax ka harahayaano wax ka baaqi noqonayaano wax lagu maamuli karo wax lagu sameyn karo socon kartaa la rabaa walidaalka waxa khalad in la yiraahdo waxa haddaan sameyn karaa hadhowna say rabto ha noqoto ama magaaladan haddaan qaban karaa hadhowna si la rabo hal yeelo arrinkaas sax ma aha waxa aan qabashadeeda iyo haynteeda iyo mustaqbalkeeda laga fakaro ayaa laga maarmaana walidaalka awoodda jihaadku marka la fiirinayaa fardiga la fiirin maaye ummadda ayaa laga qiyaas qaadanaya waana shay laga maarmaana weeye ummaddu maxay awood leedahay maxaa diyaara ummaddu ma aragtay maxaa u harahaya cadawgeeda maxay kaga aadaa walidaalka siyaasadda muslimiintu ay kula tacaamulahayaan cadawgooda khaarijiga ah waa siyaasad maslaxada caamka ah ayaa lagu waardiyeynaya koox laguma maxaan ku rahaa waardiyeynayo waxa weeye mesela waxa arkaysa sida ku sugan siirada nabi sallallahu alayhi wasallam muslimiintii ayaa maslaxadooda la ilaalinaya ayada muhiim ah afraadna hadii la rabo dhimanayaan ama wala dhiibahaya nabi sallallahu alayhi wasallam Hudaybiya ayuu saxiixay Abu Jandal baa yimid niman kale oo masaakiina mustadcafiina si la yeelana wala iska dhiibahaya maxay ummadda kale ka muhiimsan ama waa shahiidahayaan مقارد أما واسكنوا لانا يان فرج بالهيل دونا لكن المهم مصلحة دي عام كاهي ويس عطايا برنامج كذا بفلها هي وهكذا الله سبحانه وتعالى حليه وحي دولة الإسلام كأن كجرين مامل كذا أن كجرين أو مالك الإسكدجن وأن سوه جرونين سياسة دودا هي مامل كودا هي سلم كودا هي حرب كودا وأوجار بالير ولا لينا يؤتجميسيد وتأيدوا أيضا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أيضا أدلوا أخريا وياها النبي لكن ولا كلا جراه وحما قال سيد الأورن هيو فعليكم النصر بلغوا استياغا هي إلا محلوغة تغايا واستثناء مستثنى منه هي ما بقى حرام با marka macnuhu waxa weeye dadka muslimiinta ahi inay isku gargaaraan waa sax laakiin siyaasadda caamka hadii gargaarkaasi dib soo gaarsiinayo wala joojinaya ummadda kala dib ku gaarahayana si un yeeli doonaan ama isdifaaci doonaan ama waa dhiman doonaan ama shahaado heli doonaan laakiin maslaxadda caamka ah ayaa la waardiyeynaya walidaalka dadka muslimiinta ah oo ilaahay leeyahay haday nasri idin ka dalbaan iyo gargaar idin ka dalbaan fi diini diinta sababteeda ka dalbaan u gargaar la yiri illa qawm balan al haydeen maano waa qawm gaala balan baa la haydeen aan isdeyn ayaa balankiinu aha ayaga iyo kuwa kale muslimiinta isku dhacay u tagimays maxay balankii aa gashay iyo maslaxadii loo galay ayaa la waardiyeynaya oo dadkan dhimanayana hadda hadintaan ama ha noolaadaan laakiin maslaxada caamka baan ugu waardiyeynayna marka in mid la cagsiyo oo la yiraahdo afraad iyo koox yar ayaa la waardiyeynaya maslaxadeeda ummadda inta kale ha baabaado waa cagsi weeyaan السياسة النبوية أي ما ركتي كهر إيمانيسا أي واحد قال له بقى هنا فهمنا واحد تمكين كله يقانو سورة دي سمحيتها هي وإن مسلمين تو أي ميل شوغان أو ميشو ده هيسان كران أو دفاعا كران أو دتكو ده يدمركو ده عروتو ده نلشو ده أي وارديين كران بقى تمكين ليراها لكن أديكو ما أنت قبصنا هي بريك عررها هي عن دفاعي كرينين إنا قشيد wax burburinaya meesha aad fadhisay ama waxa loo yaqaano muslimiinta baydadooda muslimiinta ugxantooda meesha ay taalo hadaan waardiyeyn karin
wax dhib soo gaarsiinaya lama keeno mida waa in la fahmaa marka jihaadka macnaheedu sii orod soo orod iyo jabhadee ma ahane waa in muslimiintu istiqraar meel ku leeyihiin meelna ka dagaalamahayaan ayaa loo baahan yahay marka midda insha Allah taala ayaan ku amaartay aan ku gaabsanaynaa wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.